magacayga waxa la yiraahdaa jaamac dayib jaamac waxaan ka soo jeedaa gobolada waqooyi gaar ahaan gobolka Awdal magaalada Boorama waxa la iga qabtay aniga xuduudaha gobolka Awdal uu leeyahay Itoobiya meelaha warayaacada ayaa la iga qabtay anigu markaa u jeeda taariib adoo halka telefoon aan wati ayaa waxa laga helay lambar Eritrea iyo qaxootiyo oo qaraabanay lambarkiisa ayaa laga helay tiiba la dhaliilay waa la igu xukumay waxa la igu xukumay 14 sano ayaa la igu xukumay 10 kamida waxaan ku soo qaatay xabsiga ku yaala Jigjiga jeelka dhexleeda inta kadib adigu 10 sano markaan ku jiray jeelka Itoobiya ayaan 10 sano ku soo qaatay waxaan ugu yimday madaxweynayaal Soomaaliyeed weyn ugu yimaadeen baarlamaanada Soomaaliyeed way yimaadeen madaxweyne goboleedyo way yimaadeen wax ilaa iyo inta maxaabiisteeda ka hadlay ama wax ka yidhaahba sayaraatee ma jirin anagu inta waxaan ku jirnay gud waxay noogu darneed habeenkii uu yimid madaxweyne Soomaaliyeed dalka gaar ahaan magaaladii aan ku xubnayn ee Jigjiga anagoo u hanqal taagayna oo u saacabatumeyna oo la socona laba dhaanta markii loo qaaday maalintii saddexaad uu soo duubay maxaabiistii meesha ku jirtay waxay moraalku ayaa hoos u dhacay dawladdan alla ha u heeliye Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyadoo oo 5 bilood iyadoo curdina ayay waxay bilowday inay maxaabiisaha dalalka kale ka haystaan ay si degdeg ah uga soo daayaan meel kastaba ha ku xirnaadaan 114 u horeeyay anaga aan hayn Hindiya imika lagu jira wax allaaliyo wax aan ku abaalgudi karno ugu abaalgudi karno madaxweyne Farmaajo ma jirto heel iyo hoobaan u garab taaganahay hadiye jeer waan garab taaganahay ciidadeedaan ku faanayna dadkaygaan ku faanayna